dalka wax u barteen waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo. waxaan u mahadcelinayaa danjire ama maareeyaha dekedda ambassador maxamed cali nuur America wuxuu maartay ka soo qayb qaatay waxbarashada dhagoolayaasha wuxuu ka soo qayb qaatay caafimaadka dhagoolayaasha iyo naafada oo dhanba haddana wuxuu ka soo qayb qaatay inuu shaqo siiyo maartay in dhagoolayaasha iyo curyaaminta dhammaantood naafada oo dhanba waxaan ku faraxsanahay markii ugu horeysay in xafiis dowlad aan fariisano haddaan nahay badan naafada oo aan shaqaynayno waxaan ka codsanayaa ambassador maxamed cali nuur America maadaama hadda mas'uuliyiinta dowladda uu ka mid noqday in dadka naafada aysan ku ekaanin dekedda ee uu shaqo ka siiyo hay'adaha kale ee dowladda sida immigrationka aeroboortka supermarketyada sababtoo hadda wuxuu u leeyahay awood uu kula hadlo ayuu u leeyahay marka waxaan rajaynayaa tan inay tahay albaab u furmay dadka naafada ah inay helaan shaqo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaa la helay xuquuq dad dhan xuquuqdooda lunsaneed hadda markaa wadamada kale aadno waxbarasho u aadno tusaale waxaa ku qasbanaanaynaa luqadooda inaan barano si adeegyadooda aan u helno waxbarashadii adeegyada kale bulshada waxyaabaha qaar aan u helno suuqyada marka aadayno kale bal ka waran anagoo Soomaaliya joogno haddana xuquuqda dadka qaar ay lunsan tahay weliba xuquuqda dadka maqalka naafada ka ah tababarkan muhiimadda loo sameeyo waxay tahay si ay isku fahmaan shaqaalaha dekedda weliba loo fuliyo adeegyada ay u baahan yihiin dadka maqalka naafada ka ah hadday imaadaan inaysan ku dhibtoon aysan u baahanin yacni tarjumaan banaanka noogu yimaado dadka nala nool oo walaalahayaga oo faamilkeena oo dadkeena oo shaqaalaha waxaa fiican in hay'adaha dowladda loo gudbiyo baahidaas in la daboolo aakhariya adduun baan kula xisaabtamaya marka arrintaas cid kastoo taageerada ay gacan geysatayna aakhariya adduun ajir bay ka helaysaa marka insha allahu tacaala iyadoo waajib guud tahay haddana waa xog waran xilkaama faydo oo mas-uuliyadda saaran oo la qabto marka aad iyo aad baan arrintaas ugu bogaadinaya ugu mahadcelinaynaa maareeyaha guud ee dekedda muqdisho tan iyo markii uu imaaday dekedda waxa uu dhiirigeliyey oo fursado kala duwan siiyey dadka baayaha gaarka qaba runtii waxa ay mudan yihiin fursado kuwan ka badan arrintan waxay xujo ku tahay dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo kuwa localka ah in ay fursad kuwan lamid ah ama ka balaaran oo ay siiyaan dadka baayaha gaarka qaba waxay mudan yihiin fursad lamid ah kuwa anaga aan helno kuwa lamid ah ay mudan yihiin haddii ay noqoto waxbarasho haddii ay noqoto shaqo iyo sidoo kale fursado kala duwan oo ay helaan bulshada kale caadiga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala koomkan markuu abuuray oo bini aadamkan uu keenay waxaa jirtay reason iyo sababta ugu weyna waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala la caabudo sababta labaad oo raacdana waxa weeye imtixaan kulligeen waxaan u joognaa imtixaankaasna rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa sidaad u dhaqantaan mid indhuhuu siiyey mid indhama siin mid dhaguu siiyey mid dhagama siin mid luguu siiyey mid lugama siinin laakiin uma waayin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sidaas sameeyo waxaa loo sameeyey in midna shukri noqo midna ay imtixaan ay ku noqotahay sida uu dhaqmaayo kaa kaleeto mareeyaha guud ee dekeddu markii uu yimi wuxuu ku dhawaaqay arrin ah policy-gii ahaa no one left behind inaan qofna laga tegaynin wuxuu ku dhawaaqay inuu shaqaalaysiin doono dadka baahiyada gaarka qaba waxay ahayd bishii 9aad saan filaayo haddaan khaldanayn ee sanadkii hore arrintaas wuu ka dhabeeyey waxaana la shaqaalaysiiyey dad badan sababta loo shaqaalaysiiyey waxa weeye kow in la helo horta sinaan iyo cadaalad loo siman yahay fursadaha ganacsatada waxaa ku jira kuwa qaba baahiyo gaara waxaa ku jira kuwa maaragtay u baahan sign language shaqaalaha dekedda xamaaliga qaarar badan oo waxaa ku jira oo aan dhaga qabin haddana aan aqoonin language-kii ama luqadii lagula hadlayay aan qabin baa jira oo u baahan sida la ajligeed in dowladdu soo siyaadiso oo la shaqaalaysiiyo oo haddana tababaro loo sameeyo runtii waxaan dhihi karaa ballanqaadkii ugu horreeyey ballanqaad kaleeta ma jirin kaas ka horreeyey saan filaayo ee mareeyuhu ballan qaaday inay ahayd waana ay hirgashay isaga oo fulinaya mabaadi'da iyo ballanqaadka xukuumadda dan qaran
adaanaha degada maamulkeeda hal tiim aan nahay markii halkaa laga magacaabay aniga iyo maaliye ku-xigeenada iyo agaasimayaasha qaar ka mid ah waa fariisanay go-aanka ah in la shaqaaleeyo dadka aragga ama naafada ka ah waa wada gaarnay keligay ma gaarin inkastoo ra'yiga aniga aan lahaa laakiin kulligeen go-aankaas waa isla leenahay waan ku faraxsanahay in macalin muuse meeshan oo fadhiyo oo aan muddo iswada naqaanay oo ah dadka u dooda dadka mataqaanaa naafada ah sharaf ay tahay inuu la joogo maanta degada muqdisho waxaan u mahad celinayaa macalimiinta ugu horeeya maxamed cismaan oo ardayda ama shaqaalaha qaar ka mid ah baray suulabaalaha ama sign language si la sheegay annaga waa ku faraxsanahay inaan hadda arrintan la bilaabay dadka maqalka ama aragga naafada ka ah ama culyamiinta ah sida hadda maaliye ku-xigeenka uu sheegay waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin xaqa kuwa kale ay helaana inay helaan waa qasab haddaan nahay naga maamulka degada muqdisho ilaa awoodeena waa shaqaaleynaynaa intaa awoodno sababtoo ah dadka noo yimaado oo ganacsatada ah qaar ka mid ah ayaa ah dad mataqaanaa for example sida aan wax maqli karin marka shaqaalaha waa inay bartaan qofkaas inay la shaqeeyaan ee u jawaab celiyaan ra'yiga aad keenteen waa qaadanaynaa weliba muuse oo keenay inaan madaxda dowladda iyo hay-adaha kale shaqaalaha iyo mataqaanaa dowladda in la siiyo ay ka shaqeeyaan dadka insha allah taala